هي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. cashirka waxaan kusoo aragnay sawirka iyo imageska qaabka loo soo geliyo. insha Allah cashirkan waxaan ku arkaynaa wax loo yaqaan lists and qeexitaankiisa aan kusoo marnay cashiradii hore slideska. marka waxaa leeyahay new file aan leeyahay dabcan isla folderkayga waxaan joogaa oo html lesson. marka new file aan leeyahay new file marka dhow kadib waxaan leeyahay save as waxaa ku save gareysaa dabcan waxaa leeyahay lists.html markaa dhaho kadib filekan lists oo ii furmi kadib html5 doctor keensana kadib waxaa leeyahay lists in html. so marka title intaas ka dhig marka inta markii la joogo kadib listiga waxaan leeyahay h1 listiga dhowr qaybood waaye waxaan ku hormaraa h1 waxaa leeyahay unordered list. waxaa leeyahay unordered list. unordered list marka taagiisa waxaa lasoo gaabiyo ul waxaa laga soo gaabiyey unl list. so marka taaga ul ka xiraa marka listigan gelinaa marka unordered listiga kadib waxaa leeyahay item 1 intan waxaa leeyahay list kale waxaa leeyahay item 2 inta waxaa leeyahay list kale item 3 waxaa leeyahay list kale item 4. so marka unordered list intaas waaye marka dadaan browserkayga aan tagno dabcan waan bedelnay url-ka waa bedelay waxaan sameynaa meeshaan waxaan ku qoraa waxaan leeyahay lists.html soo akhristo page-kan aan hadda furno waa kana marka unordered listiga waa kana macnaha intaan waa item 1 item 2 bullets oo jeedi unordered marka qaabkaas waaye. marka haddana waan soo deganaa waxaan leeyahay dred3 waxaan leeyahay haddana h1 ordered lists marka taageeda waxa waaye ol laga soo gaabiyo ordered list elsin oo laga soo gaabiyo marka taaga waxana kadib waxaan leeyahay list item 1 item 2 item 3 item 4. haddaan save dhaho aan ku laabto page-kayga aan refresh dhaho ordered listigana waa kana macnaha oo ujeeda ordered waa la wuxuu qaatay maxay 1 2 3 4 qaabkaas oo kana waxaa loo yaqaanaa ordered list. waxaa jiro list kala jiro aan dhaho br aan dhaho listigan waxaa la dhahaa h1 description list way marka listiga kale waxaa la dhahaa description list waxaa lagu talagalay markii oo waxa hoos imaanaya faahfaahinaysa. tusaale ahaan kale hadda description list taagiisa waxaa waaye dl oo xiran dl kaas oo laga soo gaaro description list. marka waxaa kaloo jirta dt oo ah cinwaanka definitionka ashiinaysa. tusaale ahaan oo kale hadaan dhahno coffee marka coffee-na waxaa imaanayo dd oo ah descriptionkii oo ku cadeynaysa macnaha. tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay black hot coffee. so mar kale haddaan dhahno dt aan dhahno milk dabcan dd waxaa leenahay cold milk. marka haddaan save gareyn oo page-keena u laabana refresh aan dhahno meesha waxaa ku arkaysaa description list coffee waxaa ismaanayo black hot coffee milkna waxaa ismaanayo cold milk. marka
description listiga asigana intaas waaye marka so marka description listiga waa intaas dabcan dl waxaa laga soo gaabiyey description list dt na dabcan waxaa laga soo gaabiyey definition term oo magaca ciwaanka ah dd na waxaa laga soo gaabiyey definition description marka koofii ciwaanka waa wixii hoos imaanaya black code milkina waxaa hoos imaanaya cold milk marka listiska waa intaas